وإذن سلامي وصومالي رويال فاميلي سو دواada waa anigoo Anas ah maalmahan wax badan waa la kala maqnaa gabdhay way maqan yihiin say ahaataba waxa la imaaday barnaamij cusub barnaamijkaas oo magaciisa u bixiyay qiso iyo sheeko barnaamijkan wuxuu ku soconayaa waxa weeye waxa nooga sheekeynaysaa amaba asxaabta nooga sheekeynayaan noloshiisa qofka waxa uu la soo kulmay haddii qosol tahay haddii murugo tahay hadday qisooyin fara badan yihiin nooc doona ha noqdeen marka oo WhatsApp call waaye WhatsApp ka naga soo wacaysa anigana asxaabta la wadaagaya marka barnaamijkan yara saaxiibanahay oo waxaan rabaa qof koowaad inuu noqdo maadaama saaxiibanahay waa suuraysanay waxaan ku iraahday barnaamij noocaas ah rabaa inaan bilaabo kadib wuxuu igu yiraahday niyahow waxa iga dhigtaa qofka koowaad oo barnaamijkaaga oo ku casuumaysid waxaan ku iraahday maxaa saas u dhahdayna kulay waan noqonaysaa markuu wuxuu igu yiraahday saaxiib qisadayda rabaa inaan kaaga sheekeeyo waxaan ku iraahday qisada noocee way wuxuu igu yiraahday qisa aniga noloshayda soo martay oo waliba aanan cid aan la sheergareeyay iska yartaay macnaha aysan badnayn hal iyo laba aysan dhaafsanayn okay marra waa inaan ku daahayo si ahaataba yak saaxiibkay ahaa waa wacayaa waan is wareysanaynaa wax uu noo hayana wuuna siinayaa هلو عبد الرحمن برو يورسيتا حالتك ور صاحبك علي وفعنا يورسيتا ما شاء الله والله الحمد لله انه كوعنا اليك الذي محايس عافمتك الحمد لله براذا ادي هذا كو فيعنahay waxaan sameeyay salaanta xitaa ma aragto waa soo gaabiyay sababtoo ah waa ku soo orday kodhe si ahaataba saaxiibka علي horta markuu waad soo dhawow أصحاب الساحل صاحب أصحاب تسبري بقى عبد الرحمن waxaan joogaa magaalada Boorama waxaan leeyahay wakaadi asnaqana saacado salaam xagaas ka salaamiya okay عبد الرحمن waxa sameeysaa haw qabaninba noo bilow brother اوكي maadaama aan barnaamijka ku cusubnahay aniga waxa ka sheekeynaya qisadaas oo yani qiso qof kale ma aha qiso aniga u dhacday oo qiso yani kamid ah qisooyinkii yani noloshayda qisooyinkii waxaan u qabnaa ama qisooyinkii yani bariga badnaa oo soo mara ama taariikh ahaan soo mara qiso ah waan barnaamijka ka qayb qaadanaya maadaama uu qiso sheegayay si fiican saaxiib gacali soo dhawaad ودوا صاحب مركا دي أنا قصة أساس كبلامنا يا عبد الله يراهدو مركا قصة واحد علي واحد كنا تاني 2012 كي واحد علي قصة أنا يقول علي يعني برو عفوا كان أحكي له وحير حلقة عيد علي hortu alifku ahaa laakiin inta san ma aragtay aadan noo sheegin xilliga ay dhacday qisadaadu saaxiib gacaliye ma jacayl ba ma xiriir ba ma nolol intay bilaabatay dhameystirmatay oo guur noqotay oo loo kala yaacay ba waa maxay saaxiib qisadaydu waxa weeye waa qiso jacayl oo yani bilow xiriir ilaa min jacayl yani qiso weeye yani waa qiso jacayl baan dhihi karaa si fiican saaxiib gacali waa qiso jacayl anagana waa ku soo dhaweynaynaa oo kale dad badan oo waxa jira أفراس كدولة كودي أيها كل صاحب بدهم تونا نوبل أو صاحب. أوكي. هذا بلا كرامة. سفي عن برو. قصة رتو واحد عضي 2012 كي نحلها جوي مقالة قروي. waxaa xilligaas yani labada kulli 12 waxay ma jirin khadadkan oo isaabkay waxyaabaan la isticmaalay markaas si fiican ma jirin markaas waxaa jirtay aalada waxaa isticmaalay Membaska maadaama aalada Membaska isticmaalay waxay jirtay qof markaas aalada Membaska Membas oo xilligaas yani la isticmaali jiray Membas aad baa xasuustaa braad hay
بس aaladaas waxaa jirtay gabar aan iska baranay gabadhaas markaan isbaranay waxay ku jirtay waxaan joogaa magaalada Qardho oo markaas ayadana dhowr boqol oo yani kilomitir jirtay garanayaan dadkoo dhan marka waxaa magaaladaas joogtay marka waxaa dhacday in gabadhii aan isbarano si walaaltinimo iyo si saaxiibtinimo aan isku barano muddo markaan wada xiriirinayna gabadhii aan yani xiriirkeeni oo sii batay oo sii xoogaysay oo marba uu ka sii xoogaysanayay yani waqtigii markaas aan isbaranay oo xilli ka dambeeyay oo ka sii xoogaysanayay iyadoo wax kale xiriir ah ka haysanay dhexin walaaltinimo iyo saaxiibtinimo muddo markaan adigiisaas ku wada soconay waxaan gabadha horta kala qaadanay lambarada oo yani okay brother lambarkayga waxay isugu Cabdiraxmaan wuxuu yiraahday xilligu waxa ay 12kii 2012 kii ahayd wuxuu ku noolaa Qardho wuxuu ku noolaa magaalada la yiraahdo Nairobi magaalada la yiraahdo Garowe afwan magaalada la yiraahdo Garowe oo magaalo madaxda Puntland ah waxay ninbaas iska barteen gabar joogta Qardho oo kamid ah ayadana sidoo kale waa ogtiin Puntland marka wuxuu yiraahday gabar waa isbarnay ninbaas iska barnay xiriir iyo wax kale ayadoo aan jirin si fiican waa isdhex galeen xoogaha waa la isfahamay waa la soo socday ilaa waxaan ku iraaday si fiican la isku fahmo laakiin xiriiri waxa ma jiraan kadib marka waxa dhacday waa kana wuxuu yiraahday telefoonka kala qaadan hay baa telefoonka markaan kala qaadanay يعني xiriirkeen markaas yani baaskan ku hadalnay waxa ka dhiganay by call inaan isku hadalno mar walba isku aano oo yani markaas xiriirkeen uu soo kom marka wicitaan iyo call oo yani xiriir walba iyo daqiiqad walba la isku aayo si fiican marka waxa dhacday adu callkeen baaska batay markaas xilligaas waxa jirtay waxaa la isticmaali jiray Somtel oo waxa lagu shubin jiray yani lacag bil ah oo ku hadal ah oo yani waxa la jiray ku hadal iyo xasaas kale la jiray oo yani bishaas dhan free ku yahay iska hadlaysid baa jiray aniga marka waxaan ku kaas iya bro aniga wax soo ku hadalkaas ahay yes already bas marka waxa dhacday inaan kaarto Somtel soo furaan iri Somtel ka soo furtay ana kaarka xirmada soo furtay friga ka dhigtay waxa dhacday markaas anoo danayay hadalkeeda waayo waa sidoo hore waan ka soo dhawahay oo yani waxa noqday qof hadalkeeda dirsiyo la saaxiibay waan noqday oo mar walba hadalkeeda maqlo markaas waxa dhacday inaan xilli walba aan iswaano xilli walba iska warqabno adu xiriirkeeni uu ku soo koomay hadal yani aan la kala maarmin waqti walba isla hadlayo oo waqtiga mashquulka leeyahay maalinta kale oo dhan isla hadlayo uu ku soo koomay xataa waxa dhacday in macnaha asxaabtii dadkii aan ku dhex jiray markaas aan xataa ayada darteedaan ka dhex baxayo yani waqti walba yani ayada la hadlayo waqtiga ayada la qaadanayo asxaabtii aan kaga go'ay ayadana wax kale xiriir naga dhaxayn laakiin aan dareeseen waxaan naga dhaxayana walaaltinimo yahay laakiin haddana aan hadalkeeda igala qiimo badan yahay wax walba inaan mar walba maqlo aan mar walba aan rabo inaan la xiriiro ayadana sidoo kale mar walba in hadalkeen maqsho inaan soo xiriirto si fiican muddo markaa adigu sidaas ahayn oo aan yani laba qof oo kala maarwaayeen ahaanay oo yani haddii uu qof maqan yahay maanta khadka maqan yahay yani wicitaankiisa la waayo dhowr jeer inta ku soo waco mashquul ama uu ahaado ama uu qam waayo kale qofba midkan kale uu caaroonayay uu yani ku qaylinayay oo yani walwalayay maxaa xagee ku maqnayd oo ku walwalayay yani iyadana yani wax kale dareen kale meesha u soo olin haddana aan dareenkan markaas meesha yaalan aanan qiyaasi karnin wuxuu yahay xaaladaas markaan muddo ku jirnay oo aan saahayn markaas aan anigu isweydiiyey waxaan sidii waxaan ku hayo dhinaceeda ku jiidanayo aan laga maarmi karin oo xil walba waqtigaaga dhan aad u siisay oo haddii aad wax yar weydi aad ugu walwalaysaa ayaduna haddii wax yar ku weydi ay kugu walwalaysaa oo lagu weydiinaya meesha jirtay ayadana sidoo kale waxaan sir xiriirkan ka weyn walaaltinimo saaxiibtinimo intaba ka weyn waxaan qiyaasay markaas inuu yahay jacayl inuu yahay qoftaas jeclaaday si fiican halka ay ugu Cabdiraxmaan wuxuu yiraahday gabadhii inay baaska iska barteen oo waxa ku iraaday
caadi laba qof nin baas markii dadka isticmaali jiray waa sida adiga WhatsApp group oo kale idinkoo qof ku kulmay idaan aqoonin laakiin kadib waa laga soo tagay message-kii iyo xoogaa waxaan ku iraaday seetaa maanta ma fiican tahay telefoonka la kala qaatay telefoonka markii la kala qaatay kadib xoogaa way soo socotay waxaa la gaaray maadaama intaas ku soo dhawaashi ahayd ma ogtahay in si fiican loo wada hadlo telefoonka markii la kala qaatay xoogaha dadkii kale waa la iskaga soo dhawaaday waa la islaasimay macnaheedu waxaan ka wadaa waa la is joogteeyay in markasta la isla hadlo oo qofba qof kale uu wicitaankiisa sugo ama message-kiisa uu sugo ama fariin ka socoto subaxdii ama habeenkii ama xilliga doonto ha noqotay adiga 2 saac dhowr saacadood aysan dhicin qofba qof kale inuu la hadlin xoogaa way soo socotay telefoonkii wuxuu noqday marka qasab sharci camal in labadan qof hadaysan isla hadlin aysan waxba soconayn dadkii dhan waa la iskaga soo go'ay labadooda qofba qof kale sida uu dareemayo waa asagana la dareemaya marka say ahaataba Cabdiraxmaan wuxuu yiraahday waxaa arkay inay normal ka dhaafsan tahay isku mid ma ahan laba qof oo caadi saaxiibtinimo ka dhaxayso iyo laba qof oo afaara kala jiraan adiga qofkaas dan uma haysid marka rabtaa waxaysaa waxa laga yaabaa in iska loo saaxiibada dad kugu dhadhow laakiin meesha lagu jiidayo adiga lagu wado waxa dareemaysaa inay ka bedelan tahay meeshan kale noloshan kale normalka saaxiibtinimada caadiga marka wuxuu yiraahday ma ahay nin dansan oo maskaxda ka dansan laakiin wuxuu yiraahday waan fahmay waxaan inay ka duwan yihiin arrimahan kale kadib waxaan dareemay inaysan saaxiibtinimo ahayn inaysan aqoon ahayn inaysan walaaltinimada ay ka weynaatay waxa aqoonsaday uu yiraahday barnaamijkan haya inuu yahay jacayl hay brother iyo marwal marka halka marayay aan xasuustay qofkaas inaan yani waxaan dareenkan dhinaceeda ii jiiday iyo dhinaceeda ii wada inuu jacayl yahay oo yani ayada laanteeda aanan waxba ahayn oo aan rabo mar walba inaan maqlo codkeeda mar walba rabo inaan la hadlo haddana saasay tahayna xilligaas ma jirin yani wax sawir ahaan meel la iska arko anaan sawirkeeda arag wejigeeda arag baan yani waxaan noqday qof dhinaceeda u badan oo yani markaasi aad wax dhaafo jeclaaday marka halka marayso waxaan go'aansaday maalin maalmaha kamid ah oo aan xasuustaa maalin talaada bay ahayd aduu de reer sports ba markaasna iska ahaa oo yani de xilligaas kubadii xasan iska dheli jiray waxa dhacday markaas in yani aan damco kubad baan galabkii aaday galab talaada bay ahayd laakiin maalintaas waxaan go'aansaday inaan sheego yani jacaylkii iyo wax walba aan dareenka wax walba aan qabo inaan habeenkaas aan u sheegto walaal xilliyada ugu badan aswacan oo ay ahaan jirtay wixii bacda maqribka bilowda marka habeenkaas waxa sida kubadda markaas soo dheeshay yani dareenkaaga wax walba sidii yihiin ugu sheeg waxaas yani dareemisid ogeensii anuu hadna ka baqayo deemay wax kala dhacaan si fiican dan adu maalintii galabkii kubadayda iska aaday kubadayda markaan iska aaday afan waxyar kubadayda markaan iska aaday galabkii Cabdiraxmaan hello bro Cabdiraxmaan kubadda marka aaday kubadayda iska aaday kubadayda markaan iska aadayna galabkii laakiin ma garan karo kubadda dheer galabkaas ma xasuusan karo way qof waxaan ahay meel kale ku maqan qof waxaan ahay meel kale ka fikriyo qof waxaan ahay saaca wuxuu qaban kartaa saaca yani maskaxdiisa ay joogin maskaxdiisa oo maqan tahay oo kale baan ahaa hadama aan rabo arrin iga weyn inaan caawo sheegto iga weyn fara la galo si fiican aan uligay soo marin kaafkii adu wallahi niyadiisa anuu isjoogin bakbadi iska soo dheeray waxaan dheeriyay wax kale ma kala garto oo iska soo noqday xaafadayda xaafadda markaan imid waan iska qoystay telefoonkayga soo qabsaday markaas haddana waxa igu soo furmay awoodo kale oo igu awood badan baa anigii أول ما ربينا شيكتو هالمندريمي جعلكي وحبا قفتاس وقوينا شيكتو ربي هذا وحا يوسف ودي شيء إن المركز الباب بدنا كله الباب بدأ سواها
waxaa isweydiiyey qofkan maanta waxaan ka dhexeeyay waqtinimo saaxiibtinimo laba qof waxaa isku dhow laba qof kala maarmin waxaa sir maanta marka haddii aad arrintan meesha keentid oo ah inaad qoftaan jeceshahay armaga weydaaba oo yani hadalkeedii aad mar walba xiisaha u qabtay mar walba la hadlaysay mar walba aad kaftaysay mar walba waqti la qaadanaysay ama halkaa ku dhammaada oo yani hadalkan aad tiri sheegatay dareenkan aad sheegatayba ay yani uu noqdaa midkii aad ku kala tegi lahayd ama ku kala goy lahayd oo kale aduu weliwal saas oo kale bay qabsaday adna waxaan isiri nafta maalin bay godaaye naftidaas intaas dhaana isla hadlaya adna waxaan isiri nafta maalin bay godaaye gal oo waxa yani qalbigaaga ku jira sheego wixii raba ha dhacaa hey Cabdilxaas bro kumaqlaya iyo saaxiib go'aan baa qaadatay marka waxaad tiraahdaa laba jeer lama dhinto hal baa dhintaa dan go'aan baan qaatay go'aankii markaan qaatay horto kama dambaysta wacma isla wixii rabaa ka dhacaan waan koolgareeyey markaan aan koolgareeyey aan caay iswaraysanay xaaladeenii wixii maanta qof walba soo maraya halkaa igu qabo braayo yani xaaladii yani Cabdilxaas wuxuu yiraahday wixii horta wuu fahmay gabadhii nin baas ka soo barteen xoogaa la soo socday telefoonka soo kala qaatay waqtiga kooban baa u koobaynaa ma ahan hadduu qofka nolosha uu soo maray uu ku sharxayo ma ahan daqiiqado kooban wax lagu soo koobi karo laakiin aniga waxaa ka codsaday inuu inta nuxur kale ii soo taataabto haddana saas ay tahay waa kana awal mahad celinaya boqolkiiba boqol marka wuxuu yiraahday gabadhii si ahaata wicitaankii kadib noloshii kadib wixii islaasimidii kadib waxaan dareemay waxaan inay wax kale ka bedelan yihiin go'aan baa marka waxaa ku gaaray inaan sheegto waxa ay haya marka wuxuu yiraahdaa galab talaada bay ahayd galabkaas go'aan waxaa ku gaaray caawa maghribka xilligii gabadhii aan wada hadli jirnay oo inoo khaaska ahayd oo wada sheekaysan jirnay dhalinyarada dil wada isku dareemaya ninka dhalinyarada markuu kubadiisa afaariga soo dhameystay kadib shaqaaskiisa ka bilaabanaya marka wuxuu yiraahday caawada kale way iga duwaneyd sababtoo ah go'aan waxaa ku gaaray inaan sheego oo gabadha u sheego waxa aniga yahay oo aan caadiga ahayn marka maadaama uu go'aan ku gaaray haddana option kale jira oo ah wuxuu isleeyahay oo haddana ka cabsaday qofkan maadaama aad qof saaxiibtinimo iyo walaaltinimo iyo iskala soo bilowdeen ma aragtay waji fiican oo qurux badan oo idan qofya waa ka helay qofya waan ku rabaa idan isku baran waxa markii xoogaa runta ku taabanaysana arintaas kale ka duwan tahay qof aad tiraahdo waa israbnaani waa iska helnay isla markaa isku barateen iyo qof aad waqti intaas la soo qaateen kadib aad dareentay inaad u baahan tahay qofkan waa laba farqi marka wuxuu yiraahday waxa isleeyahay wanaageedii iyo saaxiibtinimadeedii iyo walaaltinimadeedii iyo wixii oo dhan ama ku weysaa kelmadan afka ka soo bixi doonta oo ah aniga waan ku rabaa laakiin cabsidaasba laba xiliyood weeyo go'aan wuxuu ku gaaray wixii dhacay ha dhaceen inuu sheegto waana go'aanka ugu fiican noloshaada inaad go'aan ku gaartid si noloshaada wax uga bedeshid marka say ahaataba gurigiisu yimaaday kubadiisu soo dhameystay asagoo pressure saa'id yahay wadna garaac saa'id yahay waxaan ku iraaday arinta bedelan tahay wuxuu reality ma ahan wax la iska dhahayo oo ma aragtay qof iyo waa ka helay ma ahan way ka duwan tahay saa iraadayba marka maadaama xaqiiqatan way ku taabanaysaa isku mid ma ahan dadka khibrada la hadlaya waxa wax ka yaqaan marka go'aan wuxuu ku gaaray inuu gabadhi waco hey bo iga raalaho nowad markaas adigu aan wacay markaan dee soo wareysanay isxog wareysanay wixii qofka maalinta soo maray wixii dhan aska wareysanay xaaladii guud aska wareysanay dan waxaan iri markaa caawa waxaan rabaa inaan arrin ku sheego markaan leeyahay hadalkaas oo dhan caawo marka habeenkaas habeenadii hore aan la hadli jiray waa iga duwan yahay habeenkaas dhidid badan baa iga yimid anoo dhan xaaladdeedu ma fadhido marka siir naxdinba waxaan u iri yani caawa waxaan rabaa inaan arrin ku sheego bas sidii qofkii dareemay oo kale bas waxay tiraahday waayahay ii sheeg arrintaas ii sheeg sida caawa
dan waxaa yidhi cabaar baan aamusay cabaar markaan aamusay kadib haddana waxaan u sheegay inaan jeclahay aan u baahanahay oon ku yidhi waan ku jeclahay markaan hadalkaas ku yidhi waa iga aamusay wax jawaabay ma siin cabaar baan halo yidhi dhowr jeer baan halo yidhi halo markaan yidhi ay dhowr jeer iga aamusay laakiin kolkiina ay ku jirto baan isir maadaama dee hadalkii afka ku jiray uurkaa ku jiriyo banaanka keentay yacni waxa uurkaa ku jiro dhan dee soo dhamaystiro yacni wax walba u sheeg dareenkaagu dhan ogeysi si ay markaasi wixii rabaa markaas ha dhacaan si fiican dan waa u sheegay wixii gudahayga qalbigayga dareemayo dhan wanaagay haysay qof ila mid adduunka inuusan joogin in yacni aan la-aanteed dee waxba aan ahayn haddii aan waayo hadalkeed oo kale haddii aan inaan nahay qof aan dhamaystirnayn oo kale inaan mar walba u baahanahay ayada inaan yacni waan u sheegay inaan mustaqbal ka rabo inaan nolol ka rabo inaan yacni aan yacni rabo inaan garabkayga ka dhigto يعني قانتي اللي كدكتو يعني وحي قلبي كجري درين كاو قلبي انت سو امسن انت وامسنت انت اصلا سفيعا انت مركان او دميستري aan ku yiri bas waxa u sirraacay hadalkan oo nuli dhameystirin hadalkan uu sii wato aan waxa u sirraacay markaan wax walba oo qalbigayga ku jira aan u sheegtay waxa u sirraacay haddii ay ku tahay dhibaato inaan iga jawaabtid ama isleedahay hadda yani jawaab ma haysi ama aad isleedahay hadda yani waxaan kaaga jawaab ma garan karo dhimada xilliga arjid waqtiga intaa fil qaado chance card waa haysataa xilliga noqotina iga soo jawaab hadalkaas si fiican xumaana aad iga arkayn aan rabina inaan ku waayo marka okaas okay bay igu tiri okay markii uu tiri waa igu jirtayba dee anigu okay liigu yiri haddana la igu jaray haddana aan walwalsanaa horay aan isu walwalsanaa ka baqsanaa arbaad weydaa xiriirka markaad yani qofka markaad jacaylka u sheegatid yani dareenka qofka u sheegatid armaad weydaa anigu kasii walwalsan waa dareemi kartaa okay intii liigu yiri haddana markaas liigu jaray waxaad noqonaysid qof kusoo noqonayo waa dareemi karaa qof walba markaas miirkii ma joogin ba qof maqan jooga miirkii anoo dhan waxaa noqday qof nooc kale baa noqday waa sugu waayey adu muddo 10 daqiiqo meelahaas markaa dee wax walba isweydiiyey maxaa lagu soo dhigi doonaa ama lagu soo caayi doonaa wax khaldan baa ila tirmiya lagu dhigi doonaa adu jawaabo badan maskaxdayda 150 su'aalood bay weydiisay oo intaa yartaa 10 daqiiqo meelahaas baa moodaya baa filayaa dhahay bayga maqnayd 10 daqiiqo meelaha markay iga maqnayd أنا أصلي الجو سواعي بعوضة مركل الصور دونا الجديد دونا وخلطان تايب أنا هو بس حتى يبغى الجديد دونا اسمه معين سفيعة بالله سواعي تونا قميرها سكتي أوكي عبد الله هيك أنا عفوا براد الحين الحيرة هذي سعد الحين الحيرة هذي هذيك وقت كدي جرو يمادي بريشركي iyo afaarihii iyo wixii sii socdaba iyo waxaan ku iraaday arintii cuslayd iyo wixii oo dhan adiga go'aan wax ku gaar gabadh inuu waxa gabadhi markuu wacay maalintii la iska wareystay iyo intii qof ku xirneed iyo waxaan ku iraaday seeta ma fiicantahay ma sha Allah maalintaas aad u fiicneed wakaasa xogaa kadib marka arintu waxay noqotay qof iyo maanta sheekan ku haya sheekadana sheekadooda ka duwan tahay waxaana way arin baa rabaa inaan ku sheego marka wuxuu yiraahday waxaaba dareemayay markaas aan dareemay inay iga sugaysay oo way og tahay waxa aniga dhihi rabo Soomaaliya saaxib yes marka waa dareemaysaa maadaama dee awal arintan ay soo socotay wax badan haddana qofba kaligiis kuma noqon karo marka gabadhii adiga way aamustay afwan way dhageysatay waxay ku tiraa okay way soo sidaa saaxiibkay wuxuu sameeyay wuu wacay wuxuu yiraahday si ahaataba aniga arimahan waxaan dhan naga duubduub kowde qof yahay waa ku jeclahay waa isku duuduubay gabadhi dhabta u saaray go'aan ka gaar marka way aamustay ayadoo arintu way ka weynaatay waxa laga yaabaa gabar yar oo waxaas aan weligeed maqlin ahayd marka shibbay tiraaday isagana wuxuu yiraahday kolay kelmadii tiriya maxaa kugu xigi doona su'aalo badan baa isweydiinaysaa kadib wuxuu sameeyay wixii uu sii hayo dhan buu sii daayay wallahi meeshaas waa ka helay caaro
markaasuu wuxuu yiraahday si ahaataba waan ku jeclahay aniga mana rabo inaan saaxiibtinimo iyo waxaan ku iraahday anigoo de waa dareemaysaa qof rabo inuu yiraahdo kelmad kale wax ay sheeg xabiibti macaanay inuu yiraahdo qof uu rabo oo aad maanta dhan kuma ekaan karo heblaay seeta iyo walaal iyo caafimaadka marka uu yiraahdo waxaasna ka gudubno aniga waxaan rabaa inaan noqotid aniga qofkayga ii khaaska ah inaan noqotid waxaan rabaa inaan mustaqbalkeena iyo nolosheena waxaas dhan ka fikirno waxaan rabaa inaad aadan dhinacna iiga tagin waxaan rabaa inaad garabkayga noqotid waxaan rabaa inaan hal qof isku noqono nolosha hal dhinac ka wada fiirno wixii uu hayay adigu sii daayay gabadhii ayadana afaarahan way ka weynaayeen iyo ma aqaan inay wax kala damacsanayd laakiin way dhigaysanaysaa taas wayna aamusnayd kadib waxaa dhacday marka uu sii daayay saaxiibkii wuxuu hayay oo dhan wuxuu yiraahday marka take your time tartiibtaada fakir naso go'aankaaga isoo sheeg sax iyo khaladka ay dhahdidba kama xumi oo ku sugaya haye sidii bay waxay ku tiraaday okay telefonkiina waa wadamisayba saaxiibkay awlba maanta baa soo wicitaan kaliya ka dhaxsanaa inta la dhageystay oo wixii hay laga sii waxaan ku iraahday lagu qubaysto la dhuray haddana telefonkii okay inta la yiraahdo okay kaliya fiiriya waa okay waa okay kaliya inta la yiraahdo telefonkiina haddana zam marka isla markii uu fikiray 10 waxyaabood oo maskaxdaada ku soo dhacaysa maxay ku dhihi doontaa blog ma qaan inuu jiray inkar laakiin telefonka ma laga bedelan doonaa ma waxaan ku iraahday ma kelmad xumaan lagu soo bedeli doonaa waxa lagu leeyahay anaa ka daran waxa lagu dhihi doonaa 10 su'aalood buu isweydiiyay asagoo fikiraya wixii marka ma xaqiiqada tahay oo ka duwan tahay sida kale oo walwalsan oo fadhiya oo tabto telefonka ugu hadlay gabadha fadhiya ilaa had irtaan wax xasuustaa hawlahaas oo dhan wuxuu yiraahday 10 daqiiqo kadib waa shan lagu daray kadib waxa ay timaaday waxa soo wacday gabadhii yara loo saaxay marka meeshaas ay qabo adiga markii 10 daqiiqo ay dhacday saan filiyo 10 daqiiqo ku qiyaasay hadda waxaan 10 daqiiqo ka midnaan baahay ay dhacday igala badneyd sanada igala badneyd way markaa jawaab suusidii markan way kala daran tahay waxa dhacday in markay soo wacday ka qabtay wax kala leeyma oran halo markaan yiri